madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi Ciro ayaa digreetay madaxweyne ku aasaasay guddida nabadda ee qaranka waxaana uu madaxweynuhu magacaabay 7 xubnood sidaasina waxa warbaahinta u sheegay afhayeenka madaxweynaha Xuseen Aadan Ciga Xuseen Dayre madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi maanta oo ay taariikhdu tahay 21 bishii koowaad 2025 wuxuu soo saaray xeer madaxweyne xeer lambar eber hal 2025 kaasoo nuxurkiisu yahay aasaasidda guddida nabadda madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland wuxuu yiri markii aan arkay qodobka 9aad iyo qodobka 113aad ee dastuurka jamhuuriyadda Soomaaliland markii aan arkay qodobka 63aad firqadiisa saddexaad ee xeerka kala xadeynta nidaamka xukuumadda iyo hay'adaha madax bannaan xeer lambar 17 oo dhigaya in madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland isaga oo la tashanaya cid ay khasayso uu dhisi karo hay'ado madax bannaan oo loo xil saaro hawlo gaar ah markii aan ku qancay in ay nabaddu tahay furaha horumarka iyo jiritaanka nolosha la'aanteedna aan la gaari karin deganaansho siyaasadeed xasilooni dhaqaale iyo horumar bulsho